عليك شيء صح؟ ها الذكور أيق الله يقبل بدل لكن ودن tahay الثاني تلاقى الله بنايا تعيش كويدي ما waan gartay سأتكويدي haye حكويدي يا طلب حكويدي ها حرب أنا كويدي عامل قرب شوك حتى أمسك مثلا أقول قرب شوك horta farxiyay su'aal ma socodsi qurba joogta iyo qurux joogta inay waqtiyada qaar ay cun yihiin oo diasporada Soomaa saas baan ka qabnaa weliba xagga dhalinyarada da'yarta wax baratay jaamacadaha ka soo baxda dadka waddanka ku barbaaray ama ku dhashay ama intay iyagu ku dhalay qurba joogta ilaahay baa runtii jecel waxaan ka aaminsanahay farxiyay habal isku kacaya waxaan ka aaminsanahay ugu sheegaya horta ma la socotaa wiilkayga iyo xaaskayga inay qurba joog yihiin dib baan ka xasuustay marka xabadayga wareeji wala noqonaya ereygan sawatay aad maanta kala soo wadaagay xabadayga wareeji اوكي معاهم تنا هذا اوكي انا كجوكو معاهم انت ابرن هذا بيرسونال ابرن اما انا ادي تليفون اسكو بلان اسمعوا اما انا ليه كاشيء دد انا يقان اسيك او كما يرقف عيب هكا امسن horta waqti fiican bay weydiisay horta ka wayaray fanaannimo ka sokow waxaan jeclaa shakhsiyadeeda soo haraadahay video aad soo duubtay ama cid aad dirtid ama aad adoo faraxsan soo duubtid oonan daawano jiro waxa dhacday waxa isku horeysay maraan anoo Djibouti joogo soo xidhnay inaan xasuusto moogi kamera fanaaniin badan oo shaqaanaan bulsho badan oo shaqaanaan ayaan la saragnay kaliya marka la hadlayo wax ma qarasado oo jireen farxiyo wax ma qaraso marka waxa ka aaminsanahay ama fanka ka sugo shakhsiyadda jeclaa thank you so much bro thank you so much abasiti farxiyo aan waxaan aad bari horta iga qosay su'aasha qurba joogtana waan ku doortay xaal bal bixin la hataa anigu jawaabteedii ku siiyay شركة الصعب آل كور مشيع لو دفعنا فرحية دور شريك ديسي فورم ومن كل شيء كبر بعلي هيك اللي دقيقين دوام بعنا كيميت ومن الصومالي فلان تجيتهاي waayo waxa ka dhisan jaamacadda Ahmuud marka badanaa wax barasho ilaa dad baa deegaan aada marka walahi ka faalan kar maayo inta ka wada barwaaqada ciid buurama badarka ka baxaya beeraha babayga ku yaal bisaanada babayga ku yaal babayga ku yaal bisaanada ما شاء الله قبل الفنانات واحد حسي واحد كل حسي الفنانات اللي في السفي هي هسه كلها هيد رياض واحد كلها الله وحشته أبو عبد الحكيم عبد الله الجبرقي واللي وانكو قالوا ذي تشجعه الله نحسته جناك ورابيو هذه ما سنتهي فرحيو haddii aanad fanaanad ahayn maxaad kaloo noqon lahayd jeclayd inaad noqoto
haddii aanan fanaan noqon lahayn askari inaan noqon lahayn afkaaga ka xaday ugu haysta aad iyo aad wallahi haddaanan fanaan noqon lahayn ugu yaraan xoogaa sargaal sare oo ahaan lahayn wadankii laga qaato meelaha isku tuuri lahayn haddii xataa Soomaaliya isaga hagaagsanaan lahayn yah laakiin waxaan ku hamin lahaa haddii lacala askari aan noqonayo inaan wadankayga ka noqdo طبعا فرحي أن كلك أفتني أنت أنا سؤال شو كويديني وحنا نسمع مركب ويدي سؤال كورن ده ميليتري عسكري نقص حساب طبعا لكن الحمد لله صار صح لما أنا ضيقنا ما ونحرس بالتفاعلات لكن أفكي حتى في حياة عسكر بنقول لها عاد هانا نتكلم عنها بقول كيف عشان ضغط أصحاب تهدو أو أيضا جد كان هذا يسولوا له حافظ ملتين من قصة حرق أيضا أقول هذا إيه الكي يتوب ضوء أيضا ها ملتين مركان يجلس كيم وأنا كنت مبين وأنا نقول له هذا فرحية طبعا ودن كاغوات كما قنيت waxaan doonaa inaad ii yar sheegtid si yar oo kooban markii aad ka soo degtay diyaaradda maxaad dareentay dareen noocee ku galay abaya run ahaantii su'aasha hadda ay weydiinaysid iyadoo la weydiinin baan dad uga sheekeynayay intaan Minneapolis ka soo bixin adduunka meel aanan tegin inay yar tahay aan malaynayaa wadamo adiga aad lambar u yaraa dhiman adduunka intiisa badan waan tegay markii aan diyaaradda aan saaranahay ay wadanka aan u socdo ay ka degayso wax aan dareemo ma laha weliba dareenka marka aan ka soo degayo Soomaaliya weliba aan Soomaaliya meel kale kama tegin weli inta aan Muqdisho markaan ka soo degayo dareenka aan dareemo adduunka weligay xataa ma aqaan meel aan u dareemay marka waxa keenaysa ciidda way ku soo jiidanaysaa ruuxaadka ciidda iyo meeshaad ku dhalatay iyo meeshaad u dhalatay way ku soo jiidanaysaa dareen wax aan ku tilmaamo aanan garanayn oo emotional ah oo calool gadoon ah ayaan dareemaa markaan saa diyaaradda xamar ay soo dul istaagto marka waxa keenaysa day u dhalashada Soomaa marka waan ku faraxsanahay su'aasha sanad weydiisid dareen cajiib ah ma dareemaa waana ma san Soomaaliga way iga lumaan shukran alf shukr aad baan faraxsanahay inaan laba fanaan waaweyn aan agtooda fadhiyo waaweyn yar ma reerkiisa magaca ku bixiya ama aan reer Burco ma xasuusta magaca ku bixiya ku bedeleen maxaa halkaas waa salaamaya dhammaan reer Burco dhukura ayaga macnahoodu waxa waaye qofka xiiran calashan laakiin way ka halowday anigu ma xiidni inay dhahaan ay dhamxiir ya saawada ogtiin bay usually geesahan jartaa caawo kalena ma aha waa markaan show dhigaayo reer Muqdisho hadda idinku idin soo dhaqamayha qashka oo idin siisiha ayadoo dhaqamaysan aan sadaya kooda wada caweynayna talaakiin barnaamij gaar ah in la isku soo dadana laga maarmo maadaama wadanka oo la joogo wadanka Soomaaliya la joogo marka waxa waaye dhukuro waxay ka wadaan calashan qofta geesaha jarata which sheegada aad ugu qurxoonahay ay taas ay ilaaween sheegada ugu qurxoonahay waa loo ogtiin inkastoo hadda inaan ka weynaado aan rabo ilmahayga qaangaara marka ayaga leena iga bedelay diamond ay bixiyeen xafladda Soomaaliland markaan ka heesay 2017 marka ama sataan caalam su'aashan dalmar baa hore ii weydiiyay ayaga la ii bixiyay ayaga la iga bedelay wad ku beegantahay Hargeysa kormaa tegis Hargeysa after Muqdisho Hargeysa ku xigtay insha Allah jigjigo waa u socdaa ayadana waa la iga sugaaya Djibouti ayaa iyadana u socdaa isad ceeyay Hawaii safarku way iska dheeryihiin ya Muqdisho ka soo bilawnay noo jeedaan waa salaamaya safar salaam ayaan ku leenahay markan waxaan soo dhaweynaynaa macaan ee heestiisii loogu soo khatimay barnaamijka
heestan waa naruuro qalbiga nudihiisa nabdiga iyo uurka niyadda saldhiggeeda intii naxliga ee dhanacay ugu hayseego